magacaygu cabdiraxmaan bashiir laakiin business namekay waxa uu wagala bashiir waa ogahay walaalayaal waa daalantihiin maanta dhan baa joogteen saaniga u daalay marka slides inaan soo jeediyaan laakiin ma soo jeedinayo information idinku filan waa haysataan inaan waqti kale idinku dhumiyo mar raba kaliya kelmado yaryar baan inaan ku darsado anu Yurub waxaa joogaa 3 sano almost waxaan malaya kulligiin waa iga horeyseen waxbarashadeeda background education waxa kusoo qaatay Malaysia Kuala Lumpur economics 2019 baa waxaa imid Belgium Europe waxa weeye jaamacaddii waxa weeye shahaadada waxay noqotay inaan u geysto qaybaha waxbarashada Malaysia waxaan ku yiri waxaan inaan shaqaysto ileen 4 sano anoo Malaysia joogay wax baranayay marna iguma jirin inaan xamaal aado waayo wadanka u socday marka visa family ay hela Europe marka waa imid marka qorshahayga hore baa inaan stick ku noqdo inaan shaqaysto raba shahaadadeeda waxa weeye ifiiriye marka waxay noqotay inay dhahaan waxa weeye luqadda baro 2 sano kadib high school aad kadib soo diyaari marka shahaadada waxa weeye validation process ku marinaa anigana waxa weeye primary secondary and high school jaamacad baa inta soo baranaya qalin buu ma baasan ka niman baahay ay sameeyay marka waxay noqotay inaan ka baxo so hal xabaar inaan idin sheego event baan ka qayb galay qof kasta wuxuu leeyahay wake up call event noocan oo kale baan ka qayb galay English laakiin dalka Belgium tii baongos entrepreneur baa ka soo qayb galayay markaan aaday anu online business barnaamijkaas oo dhan qorshaha igu ma jirin yar baan ka saarnaa marka su'aal dadka weydiiyay wuxuu yiri who makes money while sleep ya lacag sameeya soo hurdo aniga wake up call bay noqotay qof asoo hurdo sidee lacag u sameyn karaa maalinka wixii ka dambeeyay noqotay inaa waxa weeye aan goolkayga aan raadceeyo eventi baan wake up callkayga ka helay markaas waxaan ku fikiray inaan online business sameeyo alxamdulillah waa sameeyay waxaan aasaasay shirkadda Gala Bashiir YouTube channel marka hore ku biloobay laakiin business mindset baan uga hadlayay inta kadib waxaan biloobay school in ka badan waxa weeye kumanaan arday ka baxdeen aan training ku siino skills kala duwan hadii noqon lahayd e-commerce iyo digital marketing waxaan kaloo sameeyay shirkad branding services saalka uga jeeda amba logo design iyo website design iyo digital marketing advertising kambaniyada iyo internet Soomaaliya baan ka caawinaa waayo ani markaa bilaaway wax Soomaaliya oo services bixiyo runtii way ugu adkeed inaan helo marka dareemi karaa qof markuu waxay noqotay inaan Fiverr iyo freelance international Hindi iyo Pakistani u doonano soo marka service-kaasaan sameeyay alxamdulillah company galay 4 qof oo u shaqeeyo laakiin waa remote work way qaab online freelance Soomaaliya baa waxa weeye runtii ka shaqeeyo